Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Halkan waa Bisla TV kusoo dhawaada casharkii 19aad. Horey waxaan usoo qaadanay ilaa iyo 18 cashar oo midka u dambeeyay aan shalay duubnay. Marka hadda waxaynu qaadanaynaa maanta waxa loo yaqaano schreiben. Schreiben waxa weeyaan waa qoritaan. Schreiben falkan la yiraahdo schreiben waa qoritaan. Waxaan isku dayaynaa marka hore bal inaanu furfurno xaaladda hadda taagan, kadibna jumlada ayaan gelin doonaa. Ugu dambeynna laba ficil ama laba fal oo laba waqti kala ah oo laakiin waqti la soo dhaafay ayaa gadaal inoo jira. Marka ugu horeysa waxaanu leenahay ich schreibe. Schreiben waa qoritaan. Ich aniga schreibe waan qoraya. Waa presence waxaa hadda la joogo. Du schreibst adiga waad qoraysaa. Es midba goonidiisa schreibt waa u qoraya. Schreiben waxaan idhi waa qoritaan horaan usoo qaadanay, laakiin maanta wax kalaan kaga dan leeyahay. Wir schreiben inagu waynu qoraynaa. Wir schreiben inagu waynu qoraynaa. Ihr schreibt adinku waad qoraysaan. Sie schreiben iyaga waxaa waaye adinkuna ama adigana waad qoraysaa andhaho, ama adinku oo ixtiraam mudan ama qof kaligiisna waa uu qoraya. Qaybta xigta waxaa waaye marka haddii aynu eegno qaybtan waxaan ugu talagalnay inaan jumlada gelin. Haddii jumlada aan la gelin feebka sidiisa ma soconayso. Sidaa daraaddeed si adiguna aad kalsooni u qabtid oo waxa aad dhahayso afkaada ka soo baxayo ay noqdaan kuwa saxan, ama waxa aad qorayso ay noqdaan kuwa saxan oo kalsooni ku dheehanta markaa hadlaysid, ayaan isu xilqaanay aynu garanay inaan jumlada gelino. Ich schreibe aniga waxaan qorayaa eine email. Waxaan qorayaa email. Emailkan waxaa waaye waa dhadig, maadaama uu dhadig yahay ayna ayuu qaadanayaa. Laakiin hadda xaaladan ma aha xaalad nominative, waa xaalad accusative. Sidaa daraaddeed wixii accusative colorka ayaan ka duway ama midabka ayaan dooriyay oo midab kale ayaan siiyay. Sidaa daraaddeed halkaas ayaad ka fahmi kartaa inay tahay accusative. Ich schreibe waxaan qorayaa eine email. Email ayaan qorayaa. Aynadaas micnaheedu waxay tahay waa waxaan la isla aqoonin, horay lagulama ogeyn, laakiin adiga unbaa qorayo oo hadda sheegtay. Waa marka ugu horeysa ood sheegtay. Ich schreibe waxaan qorayaa eine email. Email ayaan qorayaa. Ich schreibe waxaan qorayaa einen Brief. Warqad ayaan qorayaa. Laakiin waa sax 100% dib looguma noqonayo. Ich schreibe einen Brief. Waxaan qorayaa warqad. Ich schreibe waxaan qorayaa eine email. Waxaan qorayaa warqad. Waxaan qorayaa andhahe email ayaan qorayaa andhaho. Cafwan, marka tanna waa accusative, tanna waa accusative. Laakiin feebka waa wax kale. Ich schreibe einen Brief. Waxaan qorayaa warqad ayaan qorayaa. Ma cayina laakiin warqada hore looma shaacinaan ka wadaa macnaha. Ich schreibe meinen Brief. Aniga waxaan qorayaa waraqdeeda. Waa marka ugu horeysa sheegtay, hore uguma soo celcelin. Haddaad hore ugu soo celcelinayd waxay noqon lahayd warqadii ayaan qorayaa, emailkii ayaan dirayaa. Laakiin marka ugu horeysay waa ina eine iyo einen iyo wixii lamida isticmaashid. Ich schreibe waxaan qorayaa eine email. Ich schreibe einen Brief. Waxaan qorayaa warqad. Ich schreibe meinen Brief. Waxaan qorayaa warqadayda. Ich schreibe waxaan qorayaa deinen Brief. Adiga warqadaada ayaan qorayaa. Adiga warqadaada ayaan qorayaa waynu leenahay. Waxay noogu xigo ich schreibe waxaan qorayaa ihre email. Aniga waxaan qorayaa email ayaan qorayaa. Yaad u qoraysaa marka iyada. Ich schreibe ihre email. Waxaan qorayaa emailkeeda. So adiga waa deinen horaan usoo qaadanay. Haddii waxyaabahan lahaanshiyaha aqoonin fadlan dib u noqo. Waa accusative ihre sida deinen oo kale waxay tahay ayada du ma noqonayso, waa ihre email. Ich schreibe waxaan qorayaa ihre email. Emailkeedaan qorayaa. Ich schreibe waxaan qorayaa deine email. Emailkaadaan qorayaa. Ich schreibe waxaan qorayaa warqad ayaan qorayaa. Laakiin yaa loo qorayaa dir adiga. Ich schreibe waxaan qorayaa dir adigaan kuu qorayaa deinen Brief warqadaan. Sidaa daraaddeed waadaan kuu qorayaa. Feebkan schreibena waa dative, wuxuu qaatay dir. Diyadan waa dative. Ich schreibe waxaan u qorayaa dir adiga. Waxaan kuu qorayaa adiga dir oo adiga ah deinen Brief warqadaada. Ich aniga schreibe dir
adaan kuu qorayaa waxaan kuu qorayaa adiga deinen brief warqadaada. Markaas haddii dia meeshaan imaado macnihi wuxuu noqonayaa sidiisuu ku imaanaya, laakiin xoogaa waxay noqonaysaa halbood in la sameeyo oo kale. Aniga ich schreibe dir deinen brief. In hal mar la macneeyo ku fiicanta oo la yiraahdo aniga waxaan qorayaa warqadaada. Aniga waxaan qorayaa adiga warqadaada ayaan kuu qorayaa. Aniga waxaan kuu qorayaa warqadaada. Aniga ich schreibe deinen brief ayaan qorayaa. Yaad u qoraysaa dir, adiga ayaan kuu qorayaa. Adiga ayaan waxaan kuu qorayaa warqadaada. Warqadaada ayaan qorayaa oo adiga ayaan kuu qorayaa. Dir marka saasay datif ku tahay. Ich schreibe waxaan qorayaa ihr einen brief. Warqad ayaan ayada u qorayaa. Hadda maxay adiga ayaan kuu qorayaa. Laakiin hadda tan waxaa weeye warqad ayaan ayada u qorayaa. Tan laakiin way ka duwanta, way qeexan tahay. Waxaa waaye warqadaadii ayaan qorayaa oo horay ayay isula ogaayeen. Macnaheedu waxay tahay qofkaana keensaday warqadan ii qor, marka uu u yimid wuxuu yiri warqadaadii ayaan qorayaa, saas oo kale. Ich schreibe ihnen einen brief. Adinka ayaan waxaan iin qorayaa warqad. Idinkadan waa sida isla naqaano weyneyd, marka waxaa waaye waa tii qadarinta ahayd. Ich schreibe ihnen adinka ayaan einen brief warqad iin qorayaa. Ich schreibe ihnen adinka ayaan waxaan qorayaa eine email ayaan iin qorayaa. Ich schreibe ihr iyada waxaan u qorayaa waa datif iska ilaali. Ich schreibe ihr iyada ayaan u qorayaa morgen berito eine email ayaan berito ayada u qorayaa. Ich schreibe ihr morgen eine email waxaan u qorayaa ayada beritole email. Sidaa daraadeed meeshan waxaa haysataa wax badan. Dia geli, geli oo isaga ah ninka aya ka imaaday. Waxaa gelisaa oo canuga asagana. Waxaa gelisaa unis annaka. Waxaa gelisaa maxaa la dhihi jiray waxyaabahaas oo kale badbedelo. Maskax Ilaahay ku siiyey kala badbedel adiga. Anigu intaan caawin bay iga tahay, laakiin adiga dadaal samee. Ich schreibe iyada aan waxaan u qorayaa heute maanta einen brief. Waxaan u qorayaa iyada maanta warqad. Ich schreibe ihr heute einen brief. Warqad ayaan iyada u qorayaa. Geli halkan mid kale. Ich schreibe ihm asagoo kale heute einen brief. Oo asaga ayaan waxaan u qorayaa maanta warqad ama email meeshaan ka dhigo bedel. Ich habe eine E-Mail geschrieben. Waxaan qoray email ayaan qoray. Ich habe aniga eine E-Mail geschrieben. Email ayaan qoray. Wann hast du goorme ayaad die emailka geschrieben aad qortay. Wann hast du die E-Mail geschrieben? Calam su'aal la saaray. Tan kuma jirta meesha aan ka bixiyo. Wann hast du die E-Mail geschrieben? Goorma ayaa qortay emailka. Wann hast du die E-Mail geschrieben? Emailka goorma ayaad qortay. Waxay noqonaysaa marka ich habe E-Mail heute geschrieben. Ich habe die emailkii heute geschrieben maanta ayaan qoray. Soo gadaal ugu tagi doonaa. Ama waaba tan ayaa jawaabteeda noqonaysa. Ich habe eine E-Mail geschrieben. Soo lagu weydiiyey wann hast du die E-Mail geschrieben? Goorma qortay. Ich habe tusaale dhihi kartaa. Ich habe die E-Mail heute Morgen geschrieben oder gestern geschrieben. Wann hast du ihr die E-Mail geschrieben? Ayada goormeed u qortay emailka. Iyada goormeed u qortay emailka. Wann hast du mir die E-Mail geschrieben? Aniga goormeed ii qortay emailka. Wann hast du mir goorme ayaad aniga die E-Mail geschrieben? Emailka goormeed aniga ii qortay. Wann hast du die E-Mail geschrieben? Goormeed qortay emailka mar kale. Wann hast du ihnen die E-Mail geschrieben? Tan marka waxaa waaye iyagi waaye oo laakiin maqan oo ixtiraam aan ahayn. Iska ilaaliya. Markay weyn tahay waa tan ixtiraamka. Laakiin marka ixtiraamka ma ahan. Sidaa daraadeed waa sidii yareyd oo ahayd iyaga oo maqan. Wann hast du wann hast du ihnen die E-Mail geschrieben? Goormeed u qortay emailka. Iyaga ayaa noqonaysaa iyaga oo kale.
ich habe eine E-Mail geschrieben. E-Mail ayaan qoray. Ich habe Ihnen idinka ayaan gestern shalay eine E-Mail geschrieben. Ayaan waxaan in qoray E-Mail ayaan shalay idinka in qoray. Ich habe dir gestern eine E-Mail geschrieben. Adiga ayaan shalay kuu qoray E-Mail. Ich habe die E-Mail maxaa la jiray E-mailka 10 Uhr 10 markay ahayd geschrieben ayaan qoray. Tusaale waxaad dhihi kartaa ich habe dir tusaale ich habe dir meeshaan geli adiga bedel ich habe dir die E-Mail 10 Uhr geschrieben oder ich habe dir heute morgen oder saas E-Mail 10 Uhr geschrieben. Waxaa rabta adiga geli bedel. Waanu ka soconaynaa qaybta xigto waxaan u gudbaynaa marka Präteritumka wax loo yaqaano oo sida isu bedelay. Ich waxay qaadanaysaa schrieb ay noqonaysaa. Ich schrieb aniga waan qoray. So inta kala bedel ich schrieb waxaan qoray eine E-Mail sidoo kale ku wad. Okay, saas samee hadduu aad hoos ku soo qor Präteritumkan waa in ka rabaa. Laakiin perfect waan soo qaadanay present simple ma rabo. Laakiin Präteritumka qofkii awoodo soo saxa saan inta kale wax ka reebo hoos ku soo qoro. Du schreibst adiga waad qortay. Du schreibst waxaad qortay eine E-Mail ayaa qortay ama du schreibst waxaad qortay einen Brief. Du schreibst waxaad qortay waxaa qortay eine E-Mail oder einen Brief oder saas oo kale ama via gedgedi adiga isaga oo kale schrieb waxa uu qoray. Waxaa lena marka via schreiben anaga waxaanu qornay iyo schreibt waxaanu qornay waxa waaye iyo adinka waxaad qorteen c waxay noqonaysaa laba c isku mid waayo hal xamaas ka soo qaadanay c maxaa la jiray schreiben adinku waad qorteen ama iyaga way qoreen ama adiga waad qortay saddexdaba way noqon kartaa. Perfekt waxa la soo dhaafay wadada isticmaalan ahayd ich habe geschrieben waan qoray. Du hast geschrieben waad qortay. Es mit begoonaysa had geschrieben waa u qoray. Wir haben geschrieben waan u qornay. Ihr habt geschrieben adigu waa qorteen. Sie haben geschrieben waxa waaye labadaba waan dhihi karnaa iyaguna way qoreen. Marka waxaan rajeynayaa insha Allah intaan inaan ku filantahay sii gedgediya intayna kuwa dambe ku kulmi doono waa anigoo jaamacada Bislaa waxaan kaga tagayaa sidaa iyo amaana Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.